بسم الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد ولا ليال كسر هذا محاضرة إني أنكم بلانسنين ما أنت نوامين انتلابات وكوبيجان مالنا حدا محاضرين كنا نحن نصب اللودين شلي أو سبتي أحد إن شاء الله محاضرة ما أنت عوان كده وحنا قندونا hagaajinta bulshada muxaadarkan wuxuu noqon doonaa sheekh alfaadil doctor cali oo martino ah sheekh ayaa insha Allah ku soo dhaweynaya falyatafadal mashkuura wa majuura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد يقول الله جل وعلا في كتابه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما كلمة دينا وحاي لما يصير النقن دونتا تي حالي إنه باللعبتي يذكر ليسي دائر تأويح لحريرة mar haddii waxa toosinta u baahan ay ku koobnayn da'yarta oo ay jirto mayaadiin fara badan la xiriir bulshada inteeda kale iyo qaybaheeda kala duwan waxaan isleeyahay kelimadu inay noqoto kelimad si guud u dhacda oo taaban karta meelo kala duwan ee bulshadii la xiriirta ilaa way adkaanaysaa haddii la yidhaahdo haddana waxaan ka hadlaynaa da'yarta darina waxaan ka hadlaynaa waalidka intuu marka la iskuma keeni karo laakiin si duuduubahana markaan aan u dulmaro ilaahay aayadda wuxuu inagu yidhi laa khayra fi kathiirin min najwaahum dadku waxay isugu yimaadaan barnaamij fara badan shirar baa la qabtaa kulanno ayaa dhaca meelo la isugu yimaadaa laakiin dadku waxay ka hadlaan arrimo kala duwan ilaahay wuxuu yidhi jalla wacalaa waxay dadku ku mashquulsan yihiin oo ku howlan yihiin saddex arrimood baa ugu khayr badan ilaa man amara bisadaqa qof dadka ku booriya sadaqadii oo yidhahda wax la baxa ama aw macruuf dadka wanaagga u sheega khayrka kala hadla salaad iyo soon kala hadla zaka iyo xaj kala hadla qaybta saddexaad wuxuu ina yidhi ilaahay subxaana wa tacaala aw islaaxin bayna annaas ama dad ishaysta oo isku dhegan oo wuxuuna ay dhex mareen in heshiis lagu soo dabaalo oo la heshiisiiyo oo dadkii walaaltinimadoodii iyo quluubtooda dib la isugu soo celiyo wax qof bini aadam uu ku mashquulo oo ay dad isugu yimaadaan saddexdaa arrimood ayaa ugu khayr badan haddaba annagu qaybta dambaanu qaadanaynaa oo ah islaaxin bayna annaas إصلاح المجتمع والإصلاح فيما بين المجتمع الله معناه مال سوسو بيشبانية من نوى مجتمعي سجود هانات أبيس كالدون إن لها جاجيو مال الله ما شاء نسلا إنها نصاب بك جسته من نوى إسهيسية دحية البشدة أبيه ذا كالدون أما هالنقطة لو الروح وحسكون درصدي هالنقطة لو يغلى معنا ama noqdeen dad iyagu xigta ah ama ha noqdeen dad oo dan guud oo dan gaar ah isku keentay oo xogaa xurguf yar ay dhex martay si marka loo hagaajin lahaa haddaba markaan tilmaano al-islaax ayadda waxaad ka dhadhansatay macnaha laa khayra fi kathiiri marka la yidhi ilaahay wuxuu ugu jecel yahay camal la qabto camalada ilaahay ugu jecel yahay ayaa waxa ay tahay laba ruux oo ishaysta oo isku dhegan oo kalarka ishaysta inaad dhahdo wada heshiisiinaya wiilii waalid bay noqon karaan laba ruux oo isqabay noqon karaan laba ruux oo dano isku keentay noqon karaan ciday doonta ha noqoto heshiisiinta dadka la heshiisiinaya waa camalkan ugu khayr badan la qabto bal waxay bacdu culamaa leeyihiin majaalisi sidaas oo kale ah ee dadka lagu heshiisiiyo inta la fadhiyo qofka hadduu ilaahay baryo waxay ka mid tahay madaan ijaabati ducaa meelaha ducada lagu ajiibo waxay halkan baad soo fadhiisatay قلوب ساء وكلا جنجرت وسيك الجيدة إسكوسو جيديسي خير بات كشقيسي لما كلا السنة با إسكوسو ضنتي واسكو كنتو المال بعض فريسيسي
khilaafkii xurguftii dhextiil baa dib loo gadaal loo tuuray dad wada shaqeeya walaalay noqdeen reerkii isdiidanaa uu dhaqmaya labadii xigtada ahayd way isu soo laabteen camal ka khayr badan oo bini aadam uu qabto oo ilaahay lala hortagaay waa uu yaryahay waxay ka mid tahay camalada aad iyo aad ugu waaweyn runtii camalkan isaga ah sideedana dadka u qumaayay waa dad lagu magacaabo title waxay wataa lagu magacaabo muslixuun المصلحون waxaa jira marka saalixuun iyo waxaa jira muslixuun saalix waa qof toosan oo sidiisa u suuban oo gartay waxa ilaahay subxaana wa tacaala ku leeyahay salaadu ma seegto soon iyo zaka sida ay tahay u gutaa safka hor uu ku tukadaa khayrkiisu la baxa uu iska adag yahay waa nin aad iyo aad u wardiya oo qur-aankiisa akhrista laakiin waxa socda ee hareerihiisa ka dhacay ee mashaakil ah wax u baxaya marka maaha laakiin isaga markay tiisa taagan tahay waa nin iska adag kaa waxaa lagu magacaabaa saalix qofkaa saalixa ah waa nin marka hawshiisa gutay muslixna tiisana uu ka adkaaday oo mida ta kale wuxuu ku mashquulsan yahay dadka kale war yaa maanta is haysta war yaa is diiday war familigan intuu kala tegi lahaa aan ka shaqeeyo war reerkan baa isku dhegan war laba reer baa isku dhacay war qoryaa la isu sitaa war yaana dadka ka aamusin ninna waa sidaa ilaahay marka wuxuu tilmaamay qur-aanka waxaa laga fahmaya bulsho in iyada dhanba la halaagi karo iyadoo saalixiin ay joogaan maxaa laga wadaa iyadoo ay joogaan dad tuqaada ilaahay ka baqanaya oo safka hore buuxinaya oo masaajidda buuxinaya oo ooyin iyo salaatuleyl la soo taagan oo qur-aanka aqrinaya iyagoo ay joogaan haddii khabath uu yimaado amaba uu yimaado dulmi uu yimaado in ilaahay halaagi karo jalla wacala qur-aanku uu noo sheegay halka haddii ay muslixiin ay joogaan ilaahay aanu halaagayn muslixiin haddii ay joogaan ilaahay ma halaagayn tan koowaad waxaan ka fahmaynaa qowluhu jalla wacala wattaquu fitna laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa war ka baqa oo ka fiijignaada inuu idinku habsado cadaab haddii uu yimaado aanan gooni ku noqon doonin dadka dulmiga sameeyey لأن الفتنة عندما تنزل تعم الطالح والصالح كان وناكسن إيه كان حن أنتم مركب القلفنيس رغم وجود كثرة كاثرة يدو أي جوغان ضد قادة وحفظه لكتاب الله تالون وصففك عمرة أي واحد ليري هدي بهاشو أي تماضة كل وإذا لا تقيسا لكن إلهي يحرم ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون إلهي سبحانه وتعالى ما هلاقي أمة iyadoo ahalkeedu muslixiin ay yihiin inta marka aan u xaglinayno camalada war dadka hal la heshiisiyo hal laga shaqeeyo badbaadadeena ku jirta waana halka ummadu ay ku badbaadaan maanta haddii la yiraahdo seen maxaan kaga badbaadi karnaa abaaraha maxaanu kaga badbaadi karnaa dagaalada maxaanu ku istaajin karnaa dhiigan daadanaya maxaanu isu yani marka la isweydiiyo waa caamilka keliya waxa kaliya marka la qabto ummadu ay ku hagaagi karto inay dadku isu rogaan dad muslixiin ay isku rogaan oo dadku aanay dad mufsidiin ilaahay subhanahu wa ta'ala inna allaha la yuhibbu al-mufsidin kelmadda waxa ka soo horjeeda mufsid ilaahay ma jecla kan diradiraha ilaahay ma jecla labada ruux kan madaxa isku galina ilaahay ma jecla kan guruhu inay kala tagaan ama dadku kala tagaan ilaahay ma jecla ka shaqeeyna ka ilaahay subhanahu wa ta'ala ma jecla haddaba inta markuu ilaahay yiri haddana ilaahay dardaaran kale wuxuu yiri fattaqullaha وأصلحوا ذات بينكم إلهي كبقى مرها التقوى على قلب بحينا وحي وأصلحوا ذات بينكم حالة ديننا مركة ذات مركة كلا أديك وأصلحوا أحوالكم ما ذات بينكم وحبا إذن هايست ولذلك أيضا سياقي ذي هدان وعلنه إيو ماشا إلهي ستي كونتكست كي كجرتي وحيد يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين مروحة هاي سحابة الأحداث حقايا أي سوق قبسدان أنفاشي وجمع نفل وحي قال هذا لقى سوقاتي محل لقى مركي جهاد كلا قال كدي محل لقى نفل قاس طبعا غنيما ومركا دقال لقالو نفل قلنا مركا سيدا فيغو كلا ولمدا أما الله وضع عميمي كربا نفل قال محل لقى كدي من هبل الله بديو ما يسقى سامي بصنا ما كان هلا سيه مركي حقا خلاف كأيمد أيوة أصلحوا ذات بينكم وروح أنا أسكوه ستار ما عرفتي كتشتأو هجاجية ذات بينكم إلى مركب حقوق أمرين حي فاتقوا الله
وأصلحوا ذات بينكم مركز وحا اللي هدنا مراه وحا كمد وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين هداتين إلهي رسول كيسوه كان سما هل كان واحد لقى فهم مركز هدي خلاف وجري إنا الحلين تقوى الله أن باجرته خلاف إنا الحلين إلهي رسول كيسلام الدعين بكديغانت خلاف هدان الحلين المؤمنين دابا منهم بكديغانت هل كان ما شاءوا أيضا مركز أن ربنا إنا متلمان صلاة ربي وسلام عليه حديث بيحكي كله ورددهم إذين شيئا وحكى فضل بدن صلاة تكنيسان إيو صون كان سوي مسامينين شيئا يعني أراك تخيل إنه عمل كما أنت لقاها اللي هو عمل الصلاة ووحكي لي يجسد السلة بينك وبين رب العالمين جل وعلا وحكي لي هذه إله يسوك انحري صون كي أدوكتين فضلك أوليه أيوة وحالي رما إذين شيئا وحكى فضل بدن مركز بلا يا رسول الله يحيل صلاح ذات البين لحدين هنا ده جسان مركز فإن فساد ذات البين هي الحالقة إن لحدين وفساد أيماده وإسكو دعي إسقاقفس أيماده ومضوا إن كلا قبنتو أي كلا ضده إلا لا إسكو إيمانين أن لم يدوبن وحير النبي صلى الله عليه وسلم هي الحالقة حديث الإمام الترمذي أوري زيادة وحاجة حديث وطؤة ولا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين أبو النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما اللي وحباي حيريسا هي الحالقة مركو النبي وحباي حيريسا وما هي حيريسا ما تنتهي حيريسا ما بقدر تجيلك كنت هالباي حيريسا ما وحي حيريسا وحا إذنك إن حياله أو دينكي باي حيريسا قفك مركو يصبح الدين لا وصبح هذا دارت من كتاب حارة أو الدين لا محايا لخلافك كينا لما خلافك ويمادك دينك وكسي درجان bal adigu arag meelaha dagaalada ay ka dhacaan arag dadka waxaad arkaysaa mar kasta uu dagaal uu dhaco ama dagaalka uu bato oo dhiigga uu daato xasadka bata faqriga bata dadku inay si kala qaybsamaan badata in la isnacaa bata dadku inay isdiidaan bata in la is-aamina ayaa yani waxa soo dhan ba yaraanaysa yani aaminaadii baa meesha ka baxaysa in la isdiidaa badanaysa xasadkii baa badanaya in wax la isu qoori waa badanaysa لأنه محايا النبي صلى الله عليه وسلم وحكوت المامة هي الحالقة الله وحي الدين كلها بلتقي سابق حلقة واحد الدين سهرنا وح سهر يسئين يرى مظاهر يرى يسكن مقطع تذكر الركوع يا سجود يصير ميكانيكالي ربك وشقينه لكن صلاة النحر كذا عن حمار سنة ما بدنا سنة بقفك واستاجي وفريسنا بحيا صلاة سبحان ربي الأعلى بتكتري سبحان ربي العظيم باتري سمع الله لمن حمده تري مركز كنيسة وحاتري السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كان مليك كاحجة يكن مليك كاحجة يككهرف ديه يككادم ده إمامك كان أقدم بيد الدعيسي لكن مركز صلاة كان بحيث إنك وابس هي ستام اسمه سلام إنسان وجه جير كان مركز سور الإنسان وجه نوعا ما وجه وتبينه وجه عبوس اسمه سلام إنسان ما أقرأ سما صلاة هذا كجرا واحد أقرأ إنسان إياك نعبد وإياك نستعين أرق سورة الفاتحة marka laga soo tago maaliki yawmiddin wixii ka dambeeyay adiga kaliya isuma hadlaysid waxaad u hadlaysaa wax alla wixii muslimiina ee masjidka kula tukaday ama masjid kale ku tukaday ama ardada ilaahay subhanahu wa ta'ala guudkiisa ku nool oo waxaad tiri iyyaka na'bud wa innaga dhan ila adaan ku caabudayna wa iyyaka nasta'in wa innaga dhan ihdina as-sirata al-mustaqim ninkan aan u ducaynaysid soo salaantaan ogo ninkan aan u ducaynaysid soo salaamisan ma bis arki kartaanba وهلك ابن القيم وليه waxaa dhici karta laba ruux oo wada tukanaya oo salaada garabka saa isugu haya oo hal imaam leh oo hal farad tukanaya oo qibla u wada jeeda laakiin salaadooda waxa u dhaxaya farqi aan la qiyaasi karin midna salaadiisa samada isku shareertay xaggaas ay maraysaa oo ilaahay uu aqbalay midna dhulka ay dhaaf ilaa dahab iyo dhulku dhagan weey oo maxay ku kala duwan yihiin kana iyyaka na'budu wa iyyaka nastaciin macna u samaysa oo wuxuu iska ilaalinayaa ninka walaalkii inuu xumaan u qaado oo xiqd u qaado inay isdiidaan buu iska ilaalinaya isaga salaanta la doonanayo isaga la iska kii cafi xayla jaanis waxa jira qofka bini aadamka nacam way dhici kartaa qof inaga naga mid xanaaqin ma laha dadku waa isqabtaan wax mushkilada ma in la isqabtaay ceeb maaha maxay ilaahay subhanahu wa ta'ala laakiin wuxuu diiday isqabashadu inay sii socoto sadartu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri hadii laba ruux oo muslimiin ay wuxuu dhex maraan يعني متكين يانو كهجرونين أنو كفرقان يانو قوين ولالكي إنك بضان سدح مال موت وإنتو ديق إنتو كعسيه وكدقي وحوغا يرو
wixii waa kugu soo laalaabanayo xusuustii oo idinku hortaal laakiin wixii intaa ka badan xoogaa ka badbadis baa ku jira markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam intay kulmaan buu kana wajiga xaggaa u dadbaya kana xaggaas u jeesaya laa yusallim hada ala hada isma salaamayanba markaasuu nabigu wuxuu yidhi fa khayruhumaa labadooda waxaa khayr badan alladii yabda'u bisalaami ka salaanta bilaabaya nacam ma wixii la doono hal lagu dhaho adiga oo anuu iga baqa hal lagu yidhaha haddii la doono maxaa yeele isaga kamaadan baqin ilaah baad ka baqday la'aantay ma noolaan kara hal lagu yidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala unbaad la'aantii aadan noolaan karin noocan ma waa aragtay inaan ka saxsanahay ha ku yidhaah hadduu doono cidda saxsan ilaah baa og xaqiiqada jalla wacalaa qofka toosan ilaah subxaana wa tacaala og maalin kala bixi doona jira laakiin adiga waxaad u shaqaysataa lafahaga u shaqayso oo cibaadadaada in la aqbalo u shaqayso daadis waay salaadeenna maxay dhadhan u yeelan weyde laanna been baan wada sheegayna inaga dhan إياك نعبد وإياك نستعين ريرا لا يسكت ديدين إياك نعبد وإياك نستعين اسمه بأرك كرنبا إياك نعبد وإياك نستعين وحن محي إلهي سبحانه وتعالى مش شيء إذا وحنا هايهن وحن لنا إن كرر شيء ما ماشي الليل مسألة الإصلاح ووحي إلهي أنبياء أصدر يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح بو إلهي سبحانه وتعالى لي رسول با فريما إذين سلا إذين إيمان دونا مركي إذين مادان قفك إلهي كبقى مرحب بيسير رسالة وأصلح هدنا توصة وحناها جاجية اسنها جاك سنادة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لبدا أقدر أن قفك إنو بقى مالك يوم القيامة إنو تيرو إلهي وكقاضي هل كوحلا قاضي قفك مصلحة وولي من أولياء الله جل وعلا محل أولياء سفيدة محايا هيد في سورة يونس الذين آمنوا وكانوا يتقون صامهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك وعتم قرآن وحمحاكوري ألا إن أولياء الله تاسا نسعدي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مال الله ما شاد كعرة الصفات لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قفك واحد أقاتا إنه يقف حريرك إلهي يقول له أجد يحق بدين قرآن كآد بيوحوصون ونوات لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا جاري كده الدرجة يوم القيامة إنه سنبقانين وبقها وكتبوا يا جاري كده الدرجة يوم القيامة إنه سنمرقون ومرقان ويمن وحجاري كده قف حريرك إلهي يقول له يحق بدين مركا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما يشهد كعرة القرآن وليني ما هلكا كده وليني ما كم مقتل قفك كان مركا وقف يسوق مركا ولي جل وعلا ميادين الإسلام أحكام إذا ماشي نقول يمسن وهذا كبل الله فردي قفل ما بقولي ولا guryahana marka meelaha la joogo uu sii badi casrigan aan ku jirno kallay inkastoo hadda reer galbeed kaliya aan la dhihi karin dadka degan laakiin meelahan ka nimid waa sidaas waxaa aad iyo aad u badan khilaafaadka ka dhacaha guryaha isqabqabsiga dadkuna runtii in yar oo fara ku tirisa oo hawl khayr oo hawsha u hawlan inay galaan ayaa jira iyaguna way daalaan marka meelaha la joogo waxaa moodaaba in la yiri guryahuna laga shaqaysto maanta dhan waxaad ka dhamaanay haddaad imaam tahay haddaad muslix tahay haddaad daaciye tahay haddaad akhyaar tahay haddaad oday tahay waxaad ka dhamaanay maantana labadan is haysta ama telefoon ku heshiisii ama gogol u dhig ama gurigooda tag ama ku yimaadeen inaadan wax kalaba aadan qaban halkaana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sheegay fadli aad iyo aad u weyn maxaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay xadiis saxiix oo imaam muslim uu warinayo ibliis ciidan buu diraa ciidanka dabcan marka uu diro oo batuuliyada ay wada galaan oo mid walba missionkiisa uu soo fuliyo waa loo soo laabanaya marka report baa la soo gudbinaya su'aal buu marka weydiinaya wuxuu leeyahay ayyukum adalla musliman al-yawm am ayyukum adalla musliman al-yawm adanaytu walbasuhu taaj qof kastoo idinka idin kamid ah inta uu hawsha uu ku jiray ku guulaystay inuu limiyo qof muslim ah qofka isaga وأنا أكتدنا كله VIP تاجنا كرون كده مركا أكتد مركو كعلى مسارين يعني إبليس إذا كان ودري وحور ربع إنه يراده قف كي كسو جوليسته قف مسلم إنه لميو وقف أكتد مال وين كله معه نقرأ من الأنت أنا صلاتي وقف كأساجيو إنسان لقولها وهالمنسيو لا بنروح أو اسكو في عنا إن مركا ما ده حل اسكو قليل واحد دون طبعا نقط حديث يصيب هذا مركا النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول مركا إذا كلا الدري نقول مركا صف بالوجرة رباط بيجود بنيان بدأ وحليه ما زلت بفلان
حتى عق والديه هبل بان لقطة أصاري هير وحان قارسيي ولويس والد وعاسي تاسم كسو قوليس ريبوتك وآخرين مركو أسكري أو إبليس ودرسدي مركو أنت يراهد كدب عليه وحاس معرتي يوشك أن يصالحه بريبو له شيء يعني كده وحبيك ديل ما يعني هاش هوشان وساقبتي أسكري كان وإبليس ودرسدي وحال لي هاي وحان وحساء سيوينها وين تاسي شيء بري نتكلم إيمانه ما زلت بفلان حتى سرق هيل باساس وكلقت صاري إلا وحتى يتوجني وكسمي ولا لا يوشك أن يتوب حوين مهتن وكتب بكين كرا متكلم هذا إيمانه إن وحساس وكل شيء أنت مرك المرة بمد بحولي ما زلت بفلان حتى طلق زوجته هبل باهبل لقت صاري إلا وها كجارهار وهوين ديسي أفرق إبليس مركز يقول أنت كأديك وكان الراديني أديك وين كان الرادين أنت وسود وينيه مركز مالكاس وحقوق حرية تاج كله حر لها وجد سكرون بهالكامل حلو صار هالكامل مركز حق فهمتي عمل إبليس وجا فرح بدن عمل كأه إن لبر روح أو لما أنا أو إسقاب إن لك الجيو ama ay kala jeestaan ama ay kala hijroodaan ama guriga inuu burburo amal uu ka jecel yahay marka malaha ibliis uu dhaartay quraanka laba dhaar baa ajaa'ib laha ku jirta muru li wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adana al-an'am wala amurannahum fala yughayirunna khalqa Allah وما يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا اخلاقياتك كهل وكان الله إنه لمن دونه أو أي شركة يجلد دونا مركي حالها تاجن تهي جلكو بدل دونا أخلاقيات كون إبرك اللي قدون دار كلنا في سورة الأعراف وحوليها وحوليها عيدا كأفرت مال بناء آدم لقصوا قال أن كسوا قليل مكمله لا قعدن لهم صراطك المستقيم وضد توصن بنو فريسان هل كان سبارو ديجنا هاي waxaan ka soo weerarayaa thumma la aatiyahum bayna aydihim horana waan ka soo galaya kadaalna waan kaga imanaya waan aymaanihim midigtooda kaga imanaya waan shamaa'ilihim bidixna waan kaga imanaya afarta gees afarta barjaala markii ciidan la weerarayo qofku marka afarta gees laga soo galo oo la geli meel uu ka dhaqaaqa markaa mala ibliis hal meel uu buusan sheegin bas meesha uu sheegay waa intee waa baynahu bayna allah jalla wala kor samada ma sheegin waa meesha kaliya gurigu ku badbaaday yaa allah markuu adag waxaan aqaa yaa allah gurigiisa ku soo celi islaamtu markay carootay yaa allah ilaahay gurigeeda ku soo celi ciyalka markay dhimaan yaa allah waa inta kaliya noo furan laakiin ibliis wuxuu ballan qaaday afarta gees markaas uu thumma la tajidu aktharahum shakirin inta ugu badanna cid kuma hadnaqi doontaa ilaahay malaha ibliis markuu way ka go'an tahay contract wuxuu haystaa إن أن روح لله قادن إلى يوم يبعثون إلى يوم الوقت المعلوم contract open بوهس إسكفرا وشقينا إنتاس إسك هو شيء سجودنا لكن هذا لقى ربع سجد دفاع له هل كان مركب وحيابها الله ظهر تقول حكم الماشى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أما آيات القرآن كإنت عن حديث آدم قرآن كحول له وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذرها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما سدح آيات بالإصدار في سورة النساء أنت بوحة لقاها الله يا سيداه حدي نوعا ما قبدي درين وصاقة لا حاجة أضيق سيدي هاري إنه سنهاين هيشيس كهكش قيسو لن كذا ما حكاها جالسو وحكى له هذا الآية إنه قد بسوح الليل كل ليبة قلوبتا إيادا وأذكتها إن لا يسكين إليه سبحانه وتعالى بقى يسكين كرا لكن waxa guryaha ay ku shaqeeyaan inay tahay cadaalad meel kasto ay cadaalad jirto gurigu uu shaqeynaa biidin subhanahu wa ta'ala haddaad aragtay guri markii burburay ama ha ku burburo raariyo batay ama ha ku burburo masaa'il la isku qabsaday ama dhaqaale la isku qabsaday badana waxa uu la burburaa guriga cadaalad la'aan
meel kastoo cadaalad ay jirto walow boqolkiiba konton allah ka dhigay boqolkiiba konton allah ka dhigay cibaado haddii la helo cadaalad gurigaas uu baraaray uuna raagay u shaqaynaya halkaa markay maraysa haddana qur-aanku wuxuu leeyahay wain khiftum haddana isla suuraddii oo meel horaysa ah wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabacثuu xakaman min ahlihi waxakaman min ahliha in yuriida islaaxan yuwafiq illahu baynahuma in allaha kana caliiman khabiira haddii quraanka marka wain khiftum shiqaaqa baynihima quraanka ma dhihin wain ikhtalafa lagama bilaabin quraanka wuxuu ka bilaabay haddii uudan gala dareen ah inay is haystaan waxaad dareenta xoogaa yar ninkan sidii horeba maaha farxaddii kama muuqato ma gurigii muu ka maqan yahay islaantii maaha ciyaalkii maaha iyo waalidkii ma wada socdaan dareen baa ina galay haddaan nahay akhyaartii masaajid ku xirnayd ducaadii dadka diinka u sheegay dareen baa ina galay maxaa laynooga baahay marka fabacثuu xakama min ahlihi waxakama min ahliha ama iyagaba noo soo cawday oo yidhi hawshaasaa jirta ama gabadhii oo dacwaa masjidka timid oo imaamkii usoo ashtakootay ama dadkii usoo ashtakootay ama reerkii ama ninkii baaba soo dacwooday fabacثuu xakama min ahlihi waxakama min ahliha labada dhinac waxaad ka kala dirtaan xakam وهلك الإمام القرطبي وتمام إلهي وحسي تايت الحكم بل لبضا الروح على الرأي إنه حكى جوين كرام مركز القرآن كحله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم آيات سيادة معناه هذا ومهم إلا فهمه إلهي وحله إن يريد إصلاحا هذي رمان إني وحجاجيا آيات صحت كفهمتي لبضا الروح يسيستا ولذلك بصفة عامة علماء أسود دليشدان هدي خلاف أجر أني أديك أي ujeedadana ay tahay inaan heshiino anna waxay iga dhiganta walaalka iyo adiga kala fogaan adna waxay kaaga dhiganta adiga walaalka heshiiye oo meeshii gogashii la suuqaya keeno laakiin nin kastaba ujeedkiisu uu yahay in meesha sujiisu ka dhaco ilaahay wuxuu leeyahay wafiq illah baynahuma laakiin haddii lugii laaban tahay haddii waxa meesha ka soo baxaya aanay cajabin doonin ilaa inuu ma yasiir ilaa lisaalihi aniga bas waxaan raba iyo sida aan raba maahan natiijo aan ku qanacsanahay wax kale haddaanan meesha ka filaynin ilaahay subxaanahu wa tacaala tawfiiqda ma keenayo quraanka intaasu ina baray meedaanka waa meedaan kale ka labaad ee islaaxa u baahan wuxuu yahay qaraabadii waxa aad iyo aad nagu soo badanaya soomaalida marka ay taagan tahay maca alghayr reer kale markay taagan tahay dadku way midaysan yihiin laakiin fiima bayn markay isugu soo harto waxaad arkaysaa in baashu ay sii basashii oo kale sii finjilmayso oo aakhirkii sida uu آخر كوحد كوسا هرسا ويلي أبتيجي إسديدن ويل ديركي إسديدن ويلي أبي إسديدن قبل هويدو إسديدن خلافات كن أدبو بدنا كدي محن نقول إن قرابة هالك يكون بربرتو أن حرير أنو إيمان أما خلاف كان نقول ما هو ناشب من حالات زواجية على اقتمد أو زوج زوجة هالنقطة وحجور كان هالنقطة قرابتنا رنتي ويلي بدنته هالك مركي تاجنت النبي صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش حديث البخاري بقى واضح سنة حليهم مركي إلهي ورحم كأبوري رحم كقرابته وحكتده يحقال كوي دتك أديك حقا مركو إلهي أبوري بورحم كوح إسكسو لا ذي عرش الرحمن رب العالمين جل وعلا مركز أيور إلهي الدق رحمك وحين ما الدقي ومحاول الدق وين وعاك بقى إلهي اللي يقوي مركز النبي صلى الله عليه وسلم حليه إلهي بكوحيري ميانو عجبين وكرادي قرين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك عدي كحريسان أنا حريريني أفكي كوين وان كويني بلانتا إذا الرحم كأوتهم أي الرحم كلوك سود دقي الرحم مركا لا نهاي وحاجر ميد أدي كودو وسيدي يوكل أوكي قفك بين آدمك نينك سو إنك أنا ميدو حبيلاي سدح الجهة أيا رنتي ساء وحين تابسن أصول إيه فروع إيه حواشي أديك أبها هيدا أصول إيه فروع إيه حواشي تقسيم كان حتى وحنا أنفع يا مركز كذا لقيمينه وحنا أنفع يا مسألة دي عاقلة دايم وحنا أنفع يا مسائل فرضنا تشريع ومحل لقى وضع أدو ما بدك سجيدة وأبها إيه هيدا أبها أنا أبوها جوجا أما هراء هون أنتو كسجيدة هو إيه هيدا يقدر أسيكع وأصول فروع واحد هذا الشيء يوحي دلن هدي إلهي كتسيو فروع بالغ مقعبا حواشين وحو جيسه كاجو قول walaalkaa kula dhashay iyo walaashaa kula dhalatay aabbayaa geeska ka jooga waa eedo iyo waa adeer hooyaa geeska ka jooga waa abti iyo habar yar saas marka waa usuul iyo furuuc iyo xawaashi wey intan marka waa raximka dadka ugu dhow
idan aabbaha yaa kaaga dhow oo hooyada yaa kaaga dhow wiilka kula dhashay iyo gabadha kula dhalatay yaa kaaga dhow abti adeer yaa kaaga dhow awoo iyo ayeeye yaa kaaga dhow inta marka kugu dhow haddana baashu way sii fidaysaa oo iyaga waxbay sii dhaleelaan oo way sii bateen way sii fidaysaa ilaa ay ka gaarto meel kasta oo qof Soomaali uu ku jooga racin buu ku noqonaya lanno marna it downsizes iyada is ururinaysa marna iyada is ballaarinaysa is fidinaysa halka markay taagantaa marka midba midku kaaga dhow yahay waa noocan ma xaqa ka kalma ka xaq badan yahay ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مركي ويدينك صحابي يقول يا رسول الله مسين كرا صدقه مسين كرا dadka qaraabada ma siin kara nabiga sallallahu alayhi wasallam in lagu sadaqaysto qof qariib ah waa dhanna waxay ka tahay sadaqa dhanna waxay ka tahay sila yani sadaqa markaad bixinaysa masaka bixinaysid inaad abti adeer iyo inaad siisid habarada eedah fiican ka kula dhashay ilan biilkooda waajib kuga ma ahan gabadha kula dhalatay oo gaajaysan meeshaad meel kale ku bixin lahayd horta iyaga sii marka tooda la daboolo kuwa kale u gudub marka bixinta iyaga la siinayo ama siinta iyaga la siinayo waxa lagu magacaabaa dhanna waxay ka tahay sadaqa waajibku kaaga dhacay dhanna waa sila uu nabiga sallallahu alayhi wasallam leeyahay kuwan marka waa dadka kuwa kugu dhow nabiga sallallahu alayhi wasallam tiraadana xadiidkii tabarani amr bin suhayl wuxuu silatu alqarabati matharatun fil mali wa mahabbatun fi al-ahli ومنسأة في الأجل سدح الرمود عجائب تذلو قرابة أول حريرين كو وحكا دلانيو مثرات في المال حولها يا إلهي وكدقا حولها بطن حولها إلهي كبضيا صدقوا أو قفك أوسيو قفك أما قرابة دي سأوسيو حولها إني كبطان مويانا هرتسيدة صدقوا بصفة عامة إن سيد النبي صلى الله عليه وسلم شاقي حولها يكرد ذا ولذلك مركز السيسي ذكي قرابة حق كلها أنا حولها هرتو بضانيا لبا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذانا محبة في الأهل أهل كندا نينك كلية كجرة ضدك بيلة كور هاي كيمال أي كجا قاضي نول سينا ككلا حاجة كسر تهريبين كان بضها دافنة ولا يقف ضدك ويجعلانين وكدوه هناك كلا نيجاتيف كجوريس كده حفظيه وحنا سكر دين تصدقات النبي يقول هذانا ومن ساعة في الأجل عمري أنا ويكر نساء عمرigaagu ma kordhayo run ahaantii maxay waqti baad leedahay laakiin waxa laga wadaa cumrigaaga ilaahay baraka gelinayo hadii cumrigaagu 40 sano uu yahay ilaahay wuxuu ku siinayaa ama ka dhigay qof u shaqeynaya qof 80 sano nool oo kale haduu cumrigaagu 70 uu yahay qof 100 sano noolaa oo kale haduu 100 yahay qof 200 noolaa oo kale wala barakeynaya barakada runtii waa garan karnaa waxaan naqaan fi taariikhi rag mudayin u noolaa rag badan ay ma waaweyn afartamay ku dhintaa jiray oo afartan ka hor aan u dhaafin qaar dhowr iyo 30 ku dhintay inta kitaab ay qoraan inta wax ay sheegeen iimaan marka laga sheekeeyay maanta hebel un baa la leeyahay hebel un baa la sheegay magaciis al-imam an-nawawi magaciis intuu dhagaha ku soo laabanay ma aragtay ibn taymiyyah inta magaca dhagihiis marka dhagaha ku soo laabanay ma aragtay maxaa inta la sheegay waxa isleedahay ninka kan tira badan ma qasan u noolaa ragaas oo afartamay meelahaas ku dhintay بمعنى إن فهمنا يعني البركة في العمر وحا لقاها صلة الرحم لقاها هل كان مركة يعني ما أنت وحا عجيبة إن قرابته أي حريرته كليه مركة ضل ويرر أم أمتك الله قماضية لكن مركة تاجنت في باب الإحسان مركة تاجنت أنا شغل كلها حديدتك هالدورك رارك كجرة أما ضدك إلهي هنتي وشي هدا أنت إسحل قامان ويرادان كليه أنك شقين وردتك دبعتي سن زكده انت انا وحيسه الزكاه انت ka qaadno faturadu ala fuqaraahim kuwana fuqarada aan siin halkan isbitaalaha looga dhiso agoonta laga warahayo waxa loo sameeyo adiga ay ka tahay wanaajin wixii inta ka batana dad kale adigu gudbin kartid reerkaan ugu badbaaday insha Allah subhanahu wa ta'ala kooda jaahilka waxbaad bartay kana waxbaysan waxbaa siisay kanaan guurka haysan waad u guurisay tana xijaabkeen xijaab baa siisay kan baad farta bartay khayrkaad ku soo kordhisay laakiin inaad maanta aqaaraan hub lagu gaday ama shilin laga soo bixin marka lagu reerkaasaan isaynaa shilinka aad moodid inuu meel kale ka soo baxay dhul ka soo baxay saad marka u furqinaysid marka kalena aan lagu karin kan farta la baray inaad far bartid kan salaada la baray wixii salaada lagu bari lahaa macalinka diinka dhigi lahaa kii tuushinka dhigi lahaa laga soo saari karin waxay ka mid tahay waxyaabaha dhibaatada ee inaysa ka mid tahay xadiidka Abu Bakr nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم
nabigu wuxuu leeyahay dembi ma jiro yani dembiga keliya ee cuquubadiisa la soo dadejinaya adduunyada intaad noosha waxaan ognahay qofka markuu dembi galo halkee loola suga yani waa loo kaadiyaa sooma ilaa qiyaamaha dembiga keliya ee la soo dadejiyo adduunyada tii aakharana ay ku wehelido ay sugayso waa dembiga ah albaghi wa qatiicat arraxm gardaro iyo dulamka ilahay markii buu soo dadejiyaa caaqibadiis waa helaysa markiiba iyo qatiicat arraxm qaraabo oo la gooyana cuquubada markiiba soo degdegta adduunyada qofku ku arkaya ama xoolahaaga baaba noqda ama reerkoo burbura ama xanuun aad ka bixi weydoo kale jirkaaga meel walba kaa haysta ama owlaadoo lagaa soo gala ama ilaahay waqtigaaga dhan xabsi inaad ku dhammaysatid ama ilaahay subxaana watacaala wax uu qofku uu tuso wuxuusan welis ka soo kaban karin waxay ka mid tahay nataa'ijta ka dhalata qatiicat arraxm qaraabo oo la gooyo waxa ka dhasha waxay kaloo ka mid tahay waxyaabaha ka dhasha dulmiga ama baqiga dadka la dulminayo cuquubadaas way soo degdegtaa waxaa jira dunuub fara badan oo taa ka weynaan karta oo ilaahay dib u dhigayaa dhici karta laakiin النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم حديث العجائب تسولي وحكى الله كم هذا الإصلاح هلك أباهن ميدان كالحير درسكو سدح درس بالله درس كأه منا ومن مسلم horta waa mid maaragtay daris oo shaqo isku lahayn oo muslim maaha hal xaq buu leeyahay muslimnimo ku darsaday xaq labaad buu leeyahay wuxuu ku darsaday qaraabanimo ku darsaday waaba soomaali saddex xaq buu kugu leeyahay yani macnaa marka aanu muslim ahayna xaqii daris wanaagii buu kugu leeyahay markuu muslimo ku darsado oo aad marka allahu akbar liyaa masaajidka soo wada aadaysaan oo bir ramadaan baa soo gashay liyaa ku wada farxaysaan wada afuraysaan ciidii wada tukanaysaan oo hal qibla aad wada jeedaanna laba xaq buu kugu leeyahay markuu qaraabo uu noqdo oo qaraabo markaan leeyahana uu soomaali kuu noqdo oo isku lahjatiida meelgaad ka timaadaan markaad in yar isu abtirsataanba meel isaga soo dhacaysaanna iyadana saddex xaq buu kugu leeyahay dadka sidaas oo kale ah dardaaran gaar baa ilaahay subxaana wa taala wacbudu allah walaa tushrikuu bihi shayan bilwaalidayni ixsaana ilahay wuxuu tilmaamay aayadda waxaa ku jira waljaari di lqurba deriskaa ku jira nabigana wuxuu leeyahy sala allahu alayh wasalam maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantuhu annahu eesh sayuwarithuhu jibriil baa dardaaran igala dhamaan waaye dardaaran aad igala dardaaran oo muxuu igala hadlayaa jaarka derisku igala hadlaya xataa danantu annahu sayuwarithu waxaaban mooday si ugu soo celcelinaya inuu dhihi doono markaad dhimatid xoolaha isagaa iska leh waxaan moodayba ama aan ismoodsiiyey amaba xoolahaaga dhexli doonaa yani ilan qofka xoolaha dhexlaya waa qofka dadka kugu dhow sooma oo markii hore wax kaasa lagu dhexli laakiin aakhirkii markii ilaahay uu soo dejiyay aakhir suurat at-tawba wa ulul arham ba'dhum awla ba'd fi kitabillahi min al-mu'minin wal muhajirin markii ilaahay uu soo dejiyay oo la yiri dadka xigtada biological la isku dhaxli karaa uu dhaxalka wuxuu noqday dadka adiga ku xiga sooma yani nabiga wuxuu leeyahay waxaan is-iriba amu badardaaranka jibriil kolley batay amu arrinku gaaraa heer ah inuu dhihi doono xoolaha iyo hantidaada markaad dhimatid waxaa dhexli doona jaarkaa dhexli doona meydaankana meydaan cajaa'ibtiisa leh jaarka marka aan muslim ha noqdo ama yaanu muslim noqon xuquuqdiisa laga soo baxo bal markuu muslim aanu ahayn xaqiisa waa khatar lianno waxaa qalada inaad maalin salaad u soo kacday ninka kana uu ma aragtay uu ka qadsan yahay khayrka kan adiga kaliya ilaahay ku tusay ninka laga yaabo markii ciidaha la gaaro oo cidlo uu dareemo inuu isdaldalo ay halis u yahay amaba uu noocan ma iska takhaluso adigana iimaankan dhadhan kale oo ilaahay subxaana wa tacaala qalbiga kuu geliyay inaad kaliya gooni ku noqoto aadan dacwadii u sheegin waa qadarteeda leeda calaqal haddaada luqadii hagaajin karaan buusharada la qoray bal u gee wax duuban u gee calaqal la hadal ficilka laftarkiisa macnuu sameeya nin suudaaniya oo waxaan ka maqlay axad ducaad uu sheegaya wuxuu yidhi nin suudaaniya ayaa wuxuu daris la ahaa cid saas oo kale ee Europeans marka islaanta meesha degan waa islaan iska da'a waad ogtihiin wadamada aan joogno aragtay waxa la iska geeyaa meelaha dadka waaweyn
yaryarkooduna marka ay dhaleen way danaystaan waxa laga yaabaa inay yimaadaan un keliya marka la yiraahdo way dhimatay ama uu dhintay keliya waxa laga yaabaa dhaxalka iyagu raasanaya orday inay soo galaan marka wuxuu ninka kan wax kale ma samayn jirin laakiin aniga islaanteedii waxaan shaqo ka dhiganay inaan maanta dhan raashinna u karino markay isbitaal u baahan tahay aanu geyno subaxiina yani anoon iyadii ka warhayn ama akhbaarteeda aan ogaana shaqo u dareerin ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu qadaray maalintay dhimanaysay inay tiri ninkii hebel aha lagu yeero halkaasay ku ashaadatay waxay tiri xoolahaygan waxaan u dardaarmay ciddan baa iska leh يعني بمعنى معاملة مركز laga soo tago xoolahan uu helay يعني معاملة wanaagsan waxay keentay in haweeneydaas ay ku dhimato kelimatu tawxiid waxa kaliya aan raadinayno annagu meelahan aan nimid waxaan rabnaa inaan dadka masawir ama aan u noqono picture u noqono ay qaataan in la arko muslim dadkii daryeelay noocan ma waxyaabahan stereotype ka ah oo meelaha lagu qorqoro loo sheegay ma bedeli karnaa maxaan ku bedeli karnaa dacwadu inay silmi tahay inaan khayr xambaarsannahay inaan iimaan xambaarsannahay dadka oo la wanaajiyo sideedaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh oo qof muslim aad ku tiri iyo qofka kan oo marka aad hayska wada fuulaysaan ama wiishka wada fuulaysaan keliya aad noola cadaysay intaasaa laftirkeeda macno weyna taana waxay ka mid tahay waxyaabaha mayaadiinta marka loo baahay idan waxaa kaloo iyadana muhiima si duuduub ahaana majaalkan wuxuu soo hosgelayaa majaalkii xala aanu nirihaa lata'murunna bilmacruuf wala tanhunna cani lmunkar وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يوشكن أن ينزل الله عليكم عقابا من عنده ثم ترفعون أيديكم فلا يستجاب لكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قيب وحيكم انتهي مسألة دي أهيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه خلت كماشا كجرة هدون نقول لها فيما بين الأسرة قرابدين إنا الإصلاح ومنكر أكامسنا إنها صار سقط مونن خلت لبض الروح وضد الشينا wuxuu ka dhigan yahay haddaan ka aamusno iyadoo munkar aanu ka aamusnay jaarka iyo dadka isaystana inaan ka aamusno waxay ka dhigan tahay khaladkii aan ka aamusnay asal allah jalla wacala an yuslixina waiyaakum وأن يجعل خاتمتنا خير خاتمة وأن نلقى الله جل وعلا على أحسن حال وإلى هنا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم جزاك الله خير الجزاء إلى كول من المحاضرة قيم كولكن دكتور علي نوسو جدي ولا لي halka waxa ku dhamaaday muxaadaradii koowaad ee maalintii labaad waxa ku xigi doona insha Allah muxaadara ku xigta بعد المغرب waxaan geli doonaa Sheikh Mustafa muxaadarada Sheikh Mustafa waxa ku xigi doona insha Allah nadoodii iyo su'aalihii cidi su'aalo qabta insha Allah wixii hadda ka dambeeyo qoran karaan way soo gudbin karaan muxaadarada iyo nadoodaba waxay dhici doona insha Allah salaada maghrib kadib marka waa inoo salaada maghrib kadib insha Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته